haddii lagu dhahay burabiyood ayaa leedahay, haddii lagu dhahay tuubooyinkaada ayaa xiran, maanta waxaan ku wadaa xal. Steamkan aad iyo aad ayuu ku anfacaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qaaliga dhammaan igu xiran waan islaamay. Kusoo dhawaada kanalkeena dhadhanka cuntada. In gabdhaha cusub ay ugu soo biiraan waxaan leeyahay mahadsantiin sida quruxda badan aan ugu soo biirteen. Haddaan ugu cusubtaana ha iloomin subscribe inaad noo saartid oo share aad dhahday sifa walaalaha kale ee uga faa'iidaan sa adiga uga faa'iideysan. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno steamka oo lagu fadhiisanayo ama hoosta la qaaqinayo, muxuu taraa iyo muxuu faa'iidooyinka u leeyahay ama muxuu hooyooyinka faa'iidooyin u leeyahay. Sida hadda gacanta ku hayo waxaad aragtiin steam weeyaan ama ma aragta kursi lagu fadhiisanayo oo hoosta maarta lagu qaaqiyo. Hooyooyin haddaan nahay waan dhalnaa, ma qaarkood waxaan lahaa tuubooyinkaada xiran, waxaana lagu sheegaa burabiyoodka, waxaana lagu sheegaa fibroid. Hooyo haddaad tahay aniga waxaan igu recommend garanayaa steamkaas gurigaada iyo ka bixin. aad ayuu kugu wanaagsan yahay. haddaa cyst leedahay, cystka wuu kaasoo nadaafinaya. cystka waxaa weeye burabiyoodka oo maamooyinka kasoo baxo ama hooyooyinka kasoo baxo, ama haddii lagu dhahana tuubooyinkaada ma aragtaa way xiran yihiin. sidaad ogtihiin qofka ma aragtaa tuubooyinka xiran ama ma aragtaa cyst leh waxay ku xiran tahay burabiyoodkaada intuu la egyahay ay ku xiran tahay. haddii burabiyoodkaada uu yaryahay wuu ku caanfacaya, wuu kaasoo nadaafina. hadduu weyn yahana marka waxaa ku qasban tahay surgery in lagu sameeyo oo laga nadaafiyo. marka steamkan waxaa loogu talagalay in hoosta lagu qaaqiyo muddo 30 minutes ama 30 daqiiqo ah. meesha yara arkaysin biyo ayaa lagu shubayaa, kadib wuxuu wataa habkaas ayuu wataa oo lagu shubayaa. waa geeda oo loogu talagalay hoosta in lagu qaaqiyo. kadib waa kululeynaysaa. markaa kululeysid kadibna hoos ayaa u dhigaysaa ma aragtaa kuleelkiisa, waana ku fadhiisanaysaa. sidaad u aragtiin gorgorada ay u eg tahay waa saatiin, waa maro dheer oo sida gorgorad camal loo sameeyey ilaa luqunta ayay ku gaaraysaa. waxa loogu talagalay in la gashado oo kadibna maaragtaa lagu fadhiisto. haddaa aragtid maaragtaa waad waxyaalo kale intaa ismamarisid intaad maaragtaa hoosta qaaqinaysid ayaada maaragtaa steamkaadana hoos iska gelinaysaa. waxaan gacanta ku hayo waxaa waaye macaroon iyo maaragtaa ashgawanda. sidaad u ogtihiin hooyada markay ilmo raadinayso aad iyo aad ay ugu fiican tahay macaroon iyo ashgawandaba. hooyo kalix maha, odayga xitaa ama museyga. marma qaarkood waxaa waaye cilada markasta waxaa waaye hooyooyinka anaka saarnaa ma aho anaka tacaalna anaka orodnaa, laakiin marma qaarkood waxaa jirkood u baahan yihiin dabiib inay isoo dabiibaan. marka macaroonka nimanka aad ay ugu fiican tahay, special nimanka oo shahwadooda aad ay u yar tahay, because shahwada nimanka hadday yar yihiin ama ninka uu yaryahay way adag tahay hadhow hooyadaas inay uur ay noqoto. marka macaroonka aad ayuu ku anfacayaa. ashwagandadana aad ayay u wanaagsan tahay. waxaa waaye stresska ayay kaa bixinaysaa, madaxay kuu qaboojinaysaa, way ku dejinaysaa. haddaa dhiiga kari leedahay hoos ayay u dhigaysaa. haddaa stress leedahay hoos ayay u dhigaysaa stresskaada. waayo hooyada markay uurka raadinayso looma rabo wax la dhahayo stress dan. waxaa la rabaa inay hooyada ay degan tahay, maaragta hormoonkeeda uu degan yahay. marka macaroon iyo ashwaganda labadaas intaasay naga caawinaysaa, wayna dejinaysaa. haddii aad leedahay maaragta caado wareer ama maaragta caadada oo markasta maaragta kaasoo daahayso ama kaa wareereyso ama maaragta caadada oo bataacayso maaragta oo markay ku imaato wax badan aa haysanaysid, ashwagandada ama macaroon-kana aad ay ugu fiicantahay, kusoo nadaafinaysaa. caadadana way kuu saxaysaa, waayo hormoonka ayay saxaysaa ma aho. marka hooyooyin haddaan nahay waxaa waaye steamkaas ani waxaan dhilaa iskugu dadaalaa, especially hooyooyinka badi ila soo xiriiro dhahaan waxaan lagu dhahay tuubooyinka xiran ama waxaan leenahay cyst-ka ama maaragta burabiyoodka hadduu weyn yahay waxaa loo baahan yahay surgery in la sameeyo. laakiin hadduu yar yahay kan ayaa ku filan inuu kaasoo nadaafiyo, wuuna kaasoo bixinaya. ashgawandada aad ay ugu fiican tahay dadka oo haysto fibroidka. haddaa isku heshid ashgawanda iyo steamkanayta isku heshid maasha allah. haddaa aad tahana qofka hurdada ku yar, ashgawandada hurdaday ku keenaysaa, relax kaa dhigaysa, waxay kaa dhigaysaa ina aasiixatid. marka waxaaba hooyada mar haddee ilmo raadinayso waxaa muhiimada ah inay habeenkii hurdadeeda ay seexan karto, stress ee lahayn maaragtaa hormoonkeeda uu degan yahay. intaasoo dhan waa inay ka shaqaysaa. midda kalena waxaa waaye aan igu daraayo markay hooyada maaragtaa ay raadinayso ilmo waxaa weeye hooyada iyo ninkaba labadaba waxaa weeye inay isbaaraan. ma aha hooyada keli inay isbaarto,
waxaa jira wax qalabka lagu baaro aana ku ogaan kartid odaygaada shahwadiisa intay active ee tahay. Waxaa la dhahaa semen test ayaa la dhahaa. Dhaqtareynta specialist u tagi kartaa, haddii kalena Amazon aa kasoo iibsan kartaa. Waan iisoo dhigay sawirka saad u aragtiin, screenshot ka qaata, Amazon ka iibsada, and then waa test aad uga qaadaysaa, waa ku eegaysaa odaygaada shahwadiisa intuu active yahay. Hadduu active ahaan ama uu ku tusiyo negative, that means cilada asaga iskale. Markaas waxaa weeye waa inaa gashiin ama howlgashiin sidii asaga ma aragtaa waxyaalihii lagu dabiibi lahaa, ama ma aragtaa dhaqtarka u tegi laheyd, ama wixii ma aragtaa aa sameyn laheydeen inaad aad guda gashiin weeyaan. Laakiin badi waxaa waye gabdhahan dhahayaan anaka cilad leh 10 sano maana dhalin, 10 sano kan aniga waxaan dhihi lahaa ama nigu recommend gareyn lahaa odayaashiina baara, ininka kalixa isbaarina, iyaga way u baahan yihiin in la baaro. Markaas markaa baartiin kadib ayaa waxaa ogaan doontiin cilada qofka ee ka socoto. Bahalka hadda sawirka soo sawirta, Amazon kasoo iibsada, kadib waad baaraysin, instruction kuu la socdaa, wuxuu yacni ma aragtaa si loo isticmaalayo iyo sidii la sameynayo dhan wuu la socdaa. waa sidii bahalka ugxanta lagu baaraya inay soo gelin jira hadda ka hor. Calaamado ayuu ku tusaya, 2 calaamadood ku tusaya, that means way fiican tahay. hal calaamad hadduu ku tusiyo waxaa macnaheeda negative weeyaan. marka walaalahayga qaaliga kol horaan isku keen dambeysay xumaaniga ma maqli, waana jeclahay inta le mashquul adduunyo, waa fahanteen. aan rajeynaa mashquul adduunyo le ku jiraa. insha Allah waxaan rajeynayaa inaan videoyaashan iisoo badiyo, inikana shareka iyo subscribe-ka haligu dadaalahay. intaasi video ku xigo.